الله بسم الله xildhibaanada golaha shacabka qaybo ka mid ah waxay maalintii sabtida oo taariikhdu ahayd 6 bishii koowaad 2024 gudbiyeen soo jeedin mooshin looga dalbanayay xukuumadda federaalka Soomaaliya soo gudbinta heshiisyada ay la gashay wadamada shisheeye kuwa sida qarsoodida ah loo galay iyo kuwa la shaaciyay si baarlamaanka uga guto waajibaadkiisi meeshana uga saaro wax kasta oo qaranka halis ku keeni kara isla mar ahaantaasna loo dardargaliyo meelmarinta kuwa qaranka danta u ah in badan golaha shacabka wuxuu walwal ka muujiyay heshiisyada sida hoose xukuumaddu u soo saxiixday oo baarlamaan kana wadiiqooyin sharciga ah una iska soo saxiixay wasiir ayadoo aan qabiyo qoraalka heshiisyadaas golaha wasiirada ka doodin loona gudbin gariiqaan guud ee dawladda balse ay dhacday in mas'uul dal shisheeye safar ku ah uu soo saxiixo waxa uu rabo baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu si weyn uga walaacsan yahay nuxurka iyo haykalka guud ee heshiisyada sida hoose loola galay wadamada Imaaraadka Itoobiya Turki Uganda iyo wadamo kale badan lagu soo saxiixay Addis Ababa waxa kamid ah heshiiskii lagu soo saxiixay Addis Ababa 7 bishii December 2023 laguna sheegay cusboonaysiin heshiis hore ee labada dawladeed kala saxiixdeen Febraayo 2014 waxa la yaab leh in ay soo baxayaan faahfaahinno ku saabsan heshiiska is-afgaradka ee Addis Ababa bishii December 2023 xukuumadda kula saxiixday Itoobiya uu dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militariga la dagaalanka argagixisada iyo sugidda ammaanka badda iyadoo aysan Itoobiya bad lahayn haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayagoo ka ambaqaadaya xaaladda dhaliilada leh ee ka timiday Addis Ababa 1 bishii koowaad 2024 taasoo marka koowaad xadgudub ku ah jiritaanka madax bannaanida iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed marka labaadna keenaysa halis qaran iyo qabsasho dhul Soomaaliyeed oo istiraatiiji ah waxaan si degdeg ah u faraynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada soo socda inay si degdeg ah u horkeento golaha shacabka dhammaan heshiisyada ay sida qarsoodida ah ula gashay Imaaraadka Itoobiya Turki Suudaan iyo Uganda iyo kuwa kale oo wali aan la helin iyo kuwa kale oo ay shaacisay in aan wali golaha loo soo gudbin in ay si degdeg ah ula timaado qorshe difaac oo cad oo lagu kalsoonaan karo laguna xaqiijiyo badqabka dalka badda bari iyo cir isla mar ahaantaasna looga hortago dhicidda qatarro noocan oo kala ah waxa la yaab leh dooda jaban ee Itoobiya ee oranaysa maadaama ay dawladdu kale horay heshiisyo noocan ula galeen maamulada Soomaaliya ka jira aysan qaylo uga imaanin wax hadda loo qaylinayo ma jiraan keenuna waxba kama bedela kuwaas 3 inaysan xukuumaddu ku dhaqaaqin wax kasta oo kala qaybinaya shacabka Soomaaliyeed maadaama dalka ku jiro xaalad qatar weyn leh loona baahan yahay midnimo iyo difaac guud sidaas awgeed waxaan guddoonka iyo xukuumadda faraynaa in aysan keenin golaha shacabka dib u eegidda dastuurka haddii arrintaas lagu sii socdana ay ka dhignaan doonto kala qaybin bulsho iyo ka weecinta muwaadiniinta Soomaaliyeed difaaca dalkooda sidoo kale waxaan halkaan rabnaa inaan fariin ugu dirno telefishinka qaranka iyo wasaaradda warfaafinta kuwaasoo maalintii Isniinta ahayd beeniyay mooshin la qabtay oo warqad xafiiska ka soo baxday guddoonka ayagoo aanan ogeyn cadeymaha meelay ka heleen waxa laga rabaa inay arrinkaas ka bixiyaan raaligelin ama ay keenaan cadeymo ay ku qanci karaan xildhibaanada golaha shacabka ee mooshinkaas soo qoray ugu dambeyn
waxaan ka digaynaa daahinta iyo ka wareejinta in la hor keeno heshiisyada golaha shacabka muddada loo qabtay taasoo haddii ay dhacdo caddayn buuxda u noqon doonta cidda leh mas-uuliyadda bixinta iibsashada iyo luusashada badda iyo beriga Soomaaliyeed. Salaamu calaykum. Soomaaliya ha noolaato. bismillaahi raxmaani raxiim. saxaafaddu waa mahadsan tahay. waxaa halkan isugu nimid annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ah arrin xasaasiyadeeda leh oo la xiriirta heshiisyo lala galay dalal shisheeye oo ay ka mid tahay Itoobiya oo hadda aynu ishayno. heshiisyada lala galay waxaa ka mid ah nasiib darro heshiisyo la xiriira iska kaashiga ammaanka iyo muxuu ahaa isla ammaanka bari iyo badaba. Itoobiya oo la og yahay in ay rabto inay qaadato dhulkeena iyo baddeena in heshiisyo noocaas lala gala halisteeda leeyihiin haddana waliba loo soo bandhigi waayo shacabka Soomaaliyeed. waxaan ka digaynaa in shacabka Soomaaliyeed marka loo baahan yahayna la yiraahdo kaalaya soo banaan baxa dhulkiina difaacda haddana laga qariyo heshiisyada la galay. shacabku waa in la hor keenaa heshiisyada la galay si ay u arkaan oo baarlamaanka oo looga doodayo ay u arkaan ay marqaati uga noqdaan. annagu cidna duulaan kuma lihin. waa run dawladdu xiriiro way leedahay waxay leedahay arrimo international ah ayay la yeelan kartaa multilateral iyo muxuu ahaa heshiisyo laba dawladeed ama mataqaanaa multilateral ay yeelan kartaa laakiin waxaa muhiim ah waxa inay arkaan. Soomaali waxay tiraahdaa waayeel hortiisa caanaha lagu barxaa. heshiisyadaas in la hor keeno shacabka Soomaaliyeed waa mid aan u baahanahay. annaga waxaan gudbinay mooshin la xiriiro heshiisyadaas in si degdeg ah baarlamaanka lagu keeno. guddoonka waa mahadsan yihiin moshinku waa qabteen inkastoo waxaa qosol in aan warbaahinta ka aragnay gaar ahaan TV-ga qaranka oo la og yahay baarlamaanku inuu ka madax bannaan yahay xukuumaddu in TV-ga qaranka uu soo dhigo oo yiraahdo waa been waa fake warqad la xiriirtay mooshinkii laga qabtay xildhibaanada heshiiska Imaaraadka iyo Itoobiya waa haynaa aan ku qorneed ma dhibaa intaas in ay shacabka Soomaaliyeed arkaan markaasaa sidii war oo xun oo kala loo dhigo waxaa la yiri waa fake. arrintaas waa ka soo horjeednaa waxaana u yeeri doonaa wasiirka warfaafinta asaga ayaana sheegi doono meesha ay fake ku noqotay. haddana guddoonka waa hayaa xildhibaanada saxiixayna waa joogaan. wabillahi tawfiiq. wuxuu ku saabsanaa heshiisyada lala galay dalalka shisheeye gaar ahaan kii 6 September December lala galay Itoobiya iyo kii Imaaraadka lala galay in la soo gudbiyo la keeno. waa mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله. وما سنتين تيفية كلا دوان دمانتين runtii sidaan u wada shaqaynayna si gaar ah ayaan idinku mahadcelinaynaa. inta la sheegay in baan rabaa inaan ku ayido xildhibaanadii halkaan ka hadlay. waxaan rabnaa inaan idin cadeyno mooshinkii TV-ga qaranka uu yiri warqadii uu yiri feegay ahayd horta koobiga waa idin siinaynaa ayadoo original ah insha Allah ta'ala oo xildhibaanadii ku saxiixan yihiin ayaan idin siinaynaa. wasaaradana waxaan rajaynayaa arrinkaas inay ka bixin doonto raali gelin. hadday ka bixin weysana hadda waa la xisaabtamayaa cidna xoog lagu wada joogay wadanka waxaan ku wada joognaa sharci wax la yiraahdo. xildhibaano mooshin ay soo gudbiyeen golahaana wuxuu leeyahay mataqaanaa sheeg media uu leeyahay oo media golaha uu sanbeenin TV-ga qaranka inuu yiraahdo been ay ahayd runtii meel ka dhac iyo sharaf xumo ay ahayd. waxaana rajayn doonaa inay isgaran doonaan oo arrinkaas intuusan meesha hadda uu joogo uusan meel kale ka siyaadin inay raali gelin buuxda ka bixiyaan. taas waa taas. nuqulkana waa idin seenayna mooshinka insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay yiraahdo. mooshinkan waxa waaye wax kale oo dhib ma jiro. xukuumadda heshiisyadii ay soo gashay ayaan rabnaa baarlamaanka in la hor keeno. waxa ku dhex jiraan rabnaa inaan ogaano maadaama wadankeennii lagu soo xadgudbay dawladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanideena ay ku soo xadgudubtay oo jamhuuriyadda Soomaaliya maanta qayb kamid ah ay leeyihiin annaga qaadanayna saylac leeyahay. xuduudaha Soomaaliya way cad yihiin badaheena cirkeena iyo dhulkeena intaba
xuduudaha way cad yihiin marka heshiisyadaasu markii la keeno ayaan ogaan doonaa Soomaaliya cidda saaxiibka la ah iyo cidda cadowga ku ah heshiisyada lala soo galay dawladaha waa dhowr hadda mooshinka laga geeyay imaaraadka kamid ah Ethiopia kamid ah waa badan yihiin dabcan waa 6 hadda inta ma taqaana ii sheeg anagu mooshinka aan ka geynayo ay noo soo gudbiyaan guddoonka baarlamaanka la keeni doona insha Allah ta'ala ciddii ma taqaana Soomaaliya garab istaag iyo walaalnimo iyo hiilo iyo ma taqaana jilicsanaanta maanta aan jilicsanahay si dhab noo garab taagan waxa heshiisku lagu soo galay ayaan ogaan doonaa nuqulada rasmiga ah ee heshiiska ama yuga dawladda ay la soo saxiixatay waa abaal marinaynaa waa loo xalaaleynayaa ciddii laakiin ay wax ku dhex jiraan waa la xisaabtamaynaa wadankana waa ka yeerinaa laakiin waxa la leeyahay soo aaday waqti dalku ku jiro difaac qaran oo arrinta ku saabsan golahana la rabo inay qayb ka noqdaan difaacaas ay muujiyaan oo ay kacdoon qayb ka noqdaan soo uma muuqato in xildhibaano mucaarada oo dawladda si uun wax uga dhaxeeyaan in ay rabaan in ay ku dilaan arrinta qadiyada taagan mooshinada awda waxaan ka hadlayba waaba qadiyadaba xaqaan u leeyahay inaan